الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أما بعد، كسو دواذا برنامج كيني عافيماتك دكتور منو طبيبي هاي عاونا وحين إذن هاينا برنامج آد حيسو له. برنامج كينا وحو كهدليا كوليسترول، دوفنك، سليدة، سوق هاد بسال تقان. waxaa la yidhi wadaadada beerka xeertale way cunaano ilaahay maa ka yabtan oo na siisan ridii bari buur balaayada waa fogaysaa, wankii bari weynna balaayada waa xijaabaa. wadaadada beerka xeertale waa cunaano ilaahay maa ka yabtin oo na siisan ridii bari buur balaayada waa fogaysa, wankii bari weyn balaayada waa xijaaba. mida kalena bustaalow barakadaada xertaada usoo bannaan dhig, bari subag la balaayada kaa xijaabe, bari subag la balaayada kaa xijaaba. iyo maxaa kaloo maaqli jirtay bowe baayo bari laga raysay, laakiin waa qalad hadalka. bari lagama raysan karo. bari loo darsay oo bariis subag leh, bariis iyo baasto suuga leh baynu ka dharagnay annagoo meel kasta joogna iyo annagoo bariba joogna. aan usoo noqono barnaamijkeenii caafimaadka cholesteroolka ama dufanka. cholesteroolka sidiisaba ma aha wax xun. jirka qaybaha uu ka samaysan yahay sida xuubabka nudaha jirka iyo khalaayaadka jirka waxay u baahan yihiin cholesterol. xuubabkaasi loo sameeyo waxaa laga maarmaan ah inuu jirku haysto cholesterol. jirkana wuxuu u baahan yahay wax yar, dufan yar, inuu maalinta jirka soo gasho si uu markaa u samayn karo wuxuu u baahan yahay cholesterolkii, si uu u dhisto xuubabkii khalaayaadka iyo xuubabka nudaha si uu u dhiso. waxaa kaloo cholesteroolka laga sameeyaa qaybo ka mid a hormoonadana waa loo isticmaalaa. marka qofka inuu dufanka waxyar ka cuno, ama saliid ha noqoto ama subag ha noqoto, waxyar ayuu u baahan yahay, wax badan looma baahno. waxaa yar ayuu jirka ayaa ku filan. markuu qofka dufanka jirka soo galo oo ay tagto meeshii lagu dheefshiidayay mandhicirka, dhiigga ayaa qaadaya, beerka ayuu tegaya, markaa ayaa haddana dhiigga lagu celinaya oo jirka loo qaybinaya. wixii dheeraada marka waxay noqonaysaa inay jirku dhibaato u keento. cholesteroolkii marka waxaa la yiri waxaa loo bixiyaa noocyo kala duwan. mid waxaa la yiraahdaa tan wanaagsan oo waa khafiif, oo waxay kaalmaysaa jirka inuu tan adag xeerta camal ah oo xididada xiraysa inuu soo qaado. gaadiid camal ayuu usoo qaadaya, markaa dib wuxuu ugu celinayaa beerkana wuu ka takhalusayaa. marka tan wanaagsan oo khafiifka ah ayaa fiican inay kugu badato. tan xun oo adagna oo xididada fariisanaysana inay yaraato intii suurtagal ah ayaa fiican. marka haddii ay badato waxay noqonaysaa tii xumayd, ama waxa midda loo yaqaano LDL cholesterol, waa the bad cholesterol. cholesterolka xun waa midda culus oo maaragtay xeerta badan leh, sida xeertoo kale ah. waxay fariisanaysaa darbiyada xididada ama gidaarada xididada ayay fariisanaysaa marka hore. marka xididka hadday kusii badatana xididka waxaa ku dhacaya xididka intuu adkaado oo cariiri noqdo ayaa imaanaysa oo waxa loo yaqaano atherosclerosis. taa marka waxay keenaysaa in xididkii uu yaraado, meesha dhiig uu mari lahaa ay cariiri noqoto oo socodkii dhiiggii uu yaraado. marka taana hadday sii socoto, yaraanshahaas hadduu sii yaraado oo hadday sii badato yaraanshahaas, maaragtay cholesteroolkii gidaarada soo xirayay hadday soo bataan oo labada dhinac isaga yimaadaan, waxay keeni kartaa in xididkii oo dhanba uu xirmo oo markaa dhiiggii meel uu maro uu waayo. marka haddii xubnaha dhiigga ka xirmay ay yihiin xubno
muhiim ah sida wadnaha oo kale ama maskaxda waxay keenaysaa dhibaatooyin badan. taa gadaal ayaan kaga hadlaynaa oo dhibaatada kolestaroolka la xiriirta waxa lagu arkayo, waxa looga baqayo iyo waxa maaragtay la ilaalinayo waxa ay tahay ayaa marka aan kaga hadlaynaa. marka kolestaroolki waxaa kaloo aan u kala qaybin karnaa dadka markay ku badato. mid waa lagu dhashaaba, waalidka ayaa waxaad ka helaysaa dhinaca DNA-da kromosoomada ay waxay kusoo gudbinayaan gene oo aan kolestaroolka si fiican u sifeyn karin ayaad haysataa. marka waxay keenaysaa in qofkii isagoo yarba uu kolestaroolki aad u kaco, xataa isagoo aan aad u isticmaalayn jirkii ayaaba maaragtay ka takhalusi karin kolestaroolki. enzymyadii sifeyn lahaa ayaa ka qaldan oo aan maaragtay ama uuba haysaninbo ama shaqadii sidii la rabay aan u qabanayn. marka waxay keenaysaa in jirkii qofkii isagoo yar oo aan saasba u isticmaalin inuu maaragtay uu ku bato. haddii dhanka aabbaha iyo hooyada labada dhinacba uu ka yimaadabana taana ilmaha ayaa lagu arkaa in kolestaroolka uu ku bato. marka in qofka uu la socdo oo isbaaro ayaa fiican, sababtoo ah marka hore kolestaroolka markuu bato oo weli wixii lagu yaqaan in soo bixin, wax la arkaya ma jirto, calaamad ama wax uu qofka ka cabanayo ma jirto, oo waxaa la yiraahdaa waa symptom ma leh, calaamad ma leh, waa asymptomatic. marka kaliya dadka maaragtay qaba nooca lagu dhasho kale oo familial hypercholesterolemia qabo, dadka ayaa waxaa dhici karta in seedahooda kale ay ku fariistaan, ay ku bataan kolestaroolkii oo markaa guntimo ay meesha ku samaysmaan nodes of cholesterol, santomas, santalasma, sida maaragtay seedka ciribta ku yaal oo kale korkeeda kan ka baxo ayaa lagu arki karaa. waxaa kaloo la arki karaa qofkii in indhahoo kale wiilka isha qaybta madow ama iriska waxaa ku wareegsanayo qaanso ayaa ku samaysmayso aan caadi ahaan dadka caadiga laga arkaynin, aan kolestarool ku badnayn. qaanso wareegsan oo maaragtay sidii midabka oranjiga oo kale ah ayaa dhici karta in lagu arko. saas waxaa u wareegsan. marka taa waa wax aan badnayn, inta badan waa calaamad gooni ah ma leh. calaamadda waxay soo baxaysaa markay tala faraha ka hado oo dhibaatadii ay badato oo xididadii ay xirmaan, atherosclerosiskii markaa uu yimaado oo dhiiggii markaa uu gudbi karin xididkii, xubnihii muhiimka ahaana aan la heli karin. marka si ay taa u dhicin waa in qofka uu ka hortaga. ka hortaggu wuu ka wanaagsan yahay daaweynta. sidee looga hortagi karaa? waxaa looga hortagi karaa qofka habku u nool yahay inuu wax ka qabto. marka hore cuntada uu cunayo inay u qiyaasan tahay qofka oo dufanka uusan ku badnayn, inuusan dhihin bariis subag leh ayaa balaayada ka xijaabo, bariis saliiddu ka daadanayso oo laga subkan karabo, inaadan maaragtay wax faa'iido uusan lahayn. oo markaa waxa dheeraadka ah waxay noqonaysaa inay xididadii ku fariistaan. marka dhib ha isku keenin oo ha dhihin saliidan ayaanba maaragtay waa sidii dhaqankeennii hore u ahaa, ma aqaano saliidda ma nagu yaraan jirtay in la yiraahdo bariis subag leh ayaa balaayada ka xijaabay hal qabsiga noqoto, ama wankii bari weyn ama ridii wankii bari weyn ayaa balaayada xijaabo iyo ridii bari buur ayaa balaayada fogeysa. taa hadday tahay marka hadda waxay noqonaysaa in balaayadiiba ay ku timaado. sidaa darteed marka waxaa wanaagsan qofka habka u nool yahay marka hore cuntada dietka inuu iska ilaaliyo dufan dheeraad ah oo uusan u baahnayn, uusan gubi karin inuu isticmaalo, inuu qiyaas ku filan u qaato. marka qofka cuntadiisa inay u badato, qudaarta inay badato. waa ujeedaan maanta suuqa xamarajab qudaar badana taalo iyo ku dhaafin, waa ama qudaar soo qaado ama fruit soo qaado. waxaasoo dhan waa faa'iido ayay jirka u tahay. oo dietkii inay cuntadii u badato, qudaarta waa muhiim. cuntadaan cunayno inta badan inay dhir ka timaado, xoolaha wax yar ayaan uga baahannahay. saliidda aan isticmaalayno inay tahay saliid dhir ka timaaday. saliidda zaytuunka oo kale, sida zaytuunka waad ujeedaan way fiican tahay. zaytuun
annaga waxaan u naqaanaa midka loo yaqaano gawaafaha oo kale. Gawaafaha zaytuun ma aha, waa zaytuun Soomaali. Zaytuun Soomaali war kale waay, laakiin zaytuunka runta ah oo ilaahay quraan ku sheegayo والتين والزيتون بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والتين والزيتون وطور السنين وهذا البلد الأمين. وزيتونك وعمره dhulka hadda aad looga helan oo kan ugu wanaagsan aan ugu jeclahay waa kan Falastiin. Ilaahay ha u gargaaro Falastiin, yahuuddan ilaahay ha ka qabto. waa zaytuunkaas ayaa loo baahay. Saliidda laga miro ayaa fiican, ama isagiiba haddaa heli karto oo saafi ah sidiisa xataa aad u cuni karto ayaa ka mid ah. Saliidda marka inay noqoto saliid dhir ka timaaday sida zaytuunka oo kale. Macsarada xataa way fiican tahay, laakiin subaga inaan la iska badin iyo batarka inaan la iska badin waa cuntada. midda labaad, habka qofka u nool yahay waxay noqonaysaa inuu qofkii exercise sameeyo, inuu jimicsi badan sameeyo, socod badan inuu sameeyo, inuu dabaasho. ninba wuxuu awoodo, ninba taagtiisa baa la yiri. marka inaan fadhiid noqonin ayaa wanaagsan, oo qofka uu dhaqdhaqaaq badan la yimaado si markaa wixii jirkiisa soo galay uu u gubi karo, oo maaragtay wixii dheeraadka ahaa uu uga takhalusi karo, jirkiisana uu kaalmaynayo waxaan maaragtay sunta ku noqonayo oo xididada xirayo oo atherosclerosis samaynayo oo markaa dhiiggii uu mari karin si ayba u dhicin, inuu markaa qofkii ka hortago way wanaagsan tahay. cuntada oo lagu yareeyo dufankaadan ha noqdo mid dhir ka yimaada sida zaytuunka oo kale. fruits badan, miro badan inaa cuntid, qudaar badan inaa cuntid, loos iyo walaalihii sida almond oo kale ama cashew, waa mukasaraadku la yiraahdo, iyagana way fiican yihiin. qofka wax yar inuu maalin walba xoogaa hadduu ka heli karo inuu ka cuno. miraha kale inuu cuni karo, canab hadduu heli karo, maaragtay tufaax hadduu heli karo, camba hadduu heli karo, waxaas oo dhan qayb inuu xawaa uu ka cuno way fiican tahay. marka waa habka qofka u nool yahay, cuntada jirkiisa soo galaysa iyo jimicsiga inuu sameeyo, taa ayaa muhiim ah. midda kale oo muhiimka waxay tahay sigaarka jirku uu daran yahay, kolestaroolkana wuu kiciyaa. marka waxaa wanaagsan in maaragtay aan sigaarba la cabin. wax faa'iido uu leeyahay male. caafimaadku uu daran yahay, dhaqaalaha uu daran yahay, bulshada uu daran yahay. dhanka kale waxaa annaga gooni ahaan Soomaalida dhib noo geysto waa qaadka oo lacag adag aynu ku bixino. waad ogtahay meelaha qaadka lagu dadka markay qayilayaan waxay isticmaalaan maaragtay kooka badan, shaah badan, sokor badan ayaa meesha soo galayso. waxay kaloo isticmaalaan sigaarna la buufinaya. marka dhib ku dar waay. marka qofka inuu iska ilaaliyo waxyaabaha dhibka keenaya ayaa fiican, oo fadhigaa badan oo la soo jeediyo, oo ilkaha aan u fiicneen, oo caloosha aan u fiicneen, oo wax uu ku fiican yahay aanan jirin, iyadan in laga hortago. marka waa mid annaga gooni noo sii ah Soomaali haddaynu nahay, inaanu qaadka dhibaatadiisa maaragtay dhibaato unbuun maaragtay noo keenayayo inaan ka hortagno oo aananba soo gadan. sababtoo ah lacag ayaa waxaa ku gadanaysaa cudur. lacag aad waxyaabo kale oo fiican, qudaar inaad ku gadato, fruits inaad ku gadato, zaytuun inaad ku gadato, dharkii aad sports ku dheeli lahayd, ilmahaadii inaad maaragtay geliso oo maaragtay fruitskii ugu soo gado, sigaar aadan cabin, wax wanaagsan inaad ku bixiso way fiican tahay. waa marka ka hortagii intaa ayaan kaga baxaya. haddii waxaan kaloo ku tarayaa, haddii qofka dhiigkar qabana, dhiigkarka sidoo kale xididadii ayuu dhibaato gaarsiinayaa, oo wuxuu usii nugleynayaa inay soo dedegto atherosclerosiskii inay timaado. marka in la daaweeyo dhiigkarkii sida lagu daaweyn karo, inuu qofka culays limo, inuu cusbada iska yareeyo, haddii daawo u baahan yahayna inuu daawada qaato, iyo maaragtay jimicsiga hadduu sameeyo iyadana way fiican tahay. sokor hadduu qabo, dadka sokorta qabo aad bay ugu nugul yihiin in kolestaroolka uu ku bato. si fiican loola socdo, sokorta la dejiyo, maaragtay hadduu daawo u baahan yahayna daawadiisa uu qaato. haddii kolestaroolkii uu zaa'id yahayna in isagoo dietkan ilaalinayo markaa uu ku daro exercise, haddana uu kusii daro dhakhtarka si uu la tashanayo daawooyinka kolestaroolka lagu dejiyo inuu qaato. oo inta badan habeenkii ayaa noocyadooda badan la qaataa. cudurro marka waxaa jira qofka hadday ku dhacaan sida sokorta oo kale, diabetiska, u nugleynayo in qofkii kolestaroolkiisi uu bato, oo dad kale oo aan waxaa qabin ay si fudud ay noqonayso inuu qofkan ku dhaco. qofka sokorta qabo, qofka qabo hypothyroidism
qanjir kalxamaha korkooda ku yaala oo maaragtay hormoono soo daayo oo jirka u baahan dheecaanada uu soo dhiiqa jirka u baahan yahay oo ka qayb qaata falgallada jirka ka dhacaya. marka haddii dheecaankii uu soo daynaya ay yaraato waxaa ku dhacayo qofkii dhaqdhaqaaqiisii ay yaraanayo, jirkii maaragtay falgalladii ka dhacayo waxyaabihii ka socdana way yaraanayaan, oo markaa qofka wuxuu u nuglaanayaa inay kolestaroolkiisii ay badato oo hypercholesterolemia ay ku dhacdo oo xididadii markaa dhibaato ay gaarsiiso. marka cudurrada waxaa kaloo ka mid ah cudurrada beer ku dhaca, cudurrada kelyaha ku dhaco kale, kuwa intaasoo dhan maaragtay way badan yihiin cudurrada, laakiin waxay ka mid yihiin kuwa u nugleeya qofka inuu kolestarool ku dhaco. ninka ragga ah hadduu 45 sano gaaro wuxuu u nuglaanayaa inuu kolestarool ku bato. dumarkana sidoo kale markay 55 gaaraan iyo wixii ka badan iyagana way u nuglaanayaan markaa inay isla socdaan si fiican ay caafimaadkooda markaa lasii weynaadaba inuu qofka aad iyo aad isku kontrolo, isku xakameeyo, saliidda u qaadanaya inuu yareeyo oo wax ku filan oo yar inay noqoto oo u baahan yahay inuu maaragtay cuntadii wanaagsanayd healthy diet inuu isticmaalo ayaa muhiim ah, sida qudaarta, fruitka inuu isticmaalo, saliidda uu isticmaalayan inay tahay saliid ka timaaday dhirtoo kale inay u badato ayaa muhiim ah. marka haddii dhib u yimaado oo kolestaroolkii la xakameyn waayo oo xididadii uu xiro oo dhiiggii maritaankiisii uu yaraado, xubnaha maaragtay uu ku dhacayo oo dhiigga ka xirmay oo kale hadday tahay wadnahoo kale waxaa imaanaya wadna xanuun, heart attack ayaa imaanayo. hadday maskaxda tahayna waxaa imaanaya waxa loo yaqaano karood cilan ilaaha naga hayo. ma maqli jirta karood cilan oo wax kugu soo booday oo ingiriiskana ama afkan kalena medicalka loo yaqaano stroke, cerebrovascular accident, ama mid kumeel gaar ah transient ischemic inay tahay oo xoogaa ay ka xirmayso qofkii markaa calaamadihii karoodka uu kasoo baxayo ama stroke. marka karood cilan ilaahay naguma rido, si uu noogu dhicin waa inaan dadaalnaa, waa inaan dietkeena ilaashanaa. cudurradan aan soo sheegay sida tan thyroid ku dhacdo hypothyroidismka ama wadna xanuunka ama karoodka ama stroga, iyagana barnaamijyo kale ayaan dib ugu dhiganaynaa oo si gooni ah ayaan mid insha allah usoo qaadan doonaa. marka warkiyo kooban waxay tahay inaan dietka cuntada inaan saxano. dadka badankooda oo kolestarool ku dhaco nooca maaragtay familialka uu yar yahay waxaa badan midda qofka gadaal uga timaada oo habka u nool yahay iyo cudurrada kale ku dhaco ay keenayaan. marka cudurrada kale inuu iska daaweeyo, si fiican ula socdo, takhaatiirtiisa ula tashto, sida hadduu sokor qabo, dhiigkar hadduu qabo, hadduu sigaar cabo inuu ku dadaalo sidii uu ku joojin lahaa. khamrana waaba xaaraan oo ilaahay waaba naga xaaraantimeeyey, ha u dhowaanin ayaana la yiri. khamrada sidoo kale iyadana hadduu qofka cabo waxay u nugleynaysaa inuu kolestaroolkii uu ku bato. marka barnaamijkeenii maanta intaa hanoo joogo. wixii su-aalo ahna waxaad noogu soo qori kartaan faahfaahinta ama commentiga noogu soo qori kartaan. wixii maaragtay aad su-aal qabtaan waa idin soo dhaweynaya insha allah, waanu ka wada hadli doonaa iyo barnaamijyada idin xiiseynaya markii ilaahay noo suurtageliyo ayaynu ka hadli doonaa. laakiin hadda waxaynu wadnaa qaybtii silsiladii kolestaroolka iyo wixii la xiriira. marka cudurradan aan soo sheegay sida kuwa wadna xanuunka ama thyroidka ama karoodka ama maaragtay cudurrada beer ku dhaco kale ama kelyaha, maalin kale ama habeen kale ayaynu qayb uga hadli doonaa insha allah. waakhiru dacwaana an alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin. waxaynu isku ognahay inaan fadhiga ka kacno, inaan dufanka iska yarayno, inaan exercise samayno, culayska inaan yarayno, sigaarka inaan cabin, qaadka inaan cunin, oo khayraada joojino, oo lacagteennii wax faa'iido leh aynu ku qabsanno. sidaa ayay danteenu ku jirtaa. marka danina waa seeto, talo adiga kuguma noole, adigaa ku nool. marka inaan maaragtay noqono kuwa hadalka wanaagsan maqlo oo ku dhaqma. allahuma jcalna min aladiina yastamicuuna alqowl fayattabicuuna axsanah. allahuma aamiin. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. اللهم لا شفاء إلا شفاؤك،
شفاء لا يغادر سقما. اللهم صل على سيدنا محمد، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.